dadka bini'aadanka waxaa lagu qiyaasaa inay sameeyaan 3,500 oo go'aan maalin walbo. 3,500 go'aan. Go'aanka wax walbo noqon kara. Wuxuu noqonaa markaa soo kacdid inaad cadaysanaysid, sigisaanta gashan oo nooceed dharka gashanaysid, wax walbo go'aan waay. laakiin haddaad si fiican u sii fikirtid go'aanka adag ku qosaysaa maalintaada soo noqonaa. waxaa laga yaabaa inay jiraan go'aan lagaaga baahan yahay arabti inaad qaadid, arabti ilaa muddo inaad qaadid oo ilaa hadda ku sugaya. go'aanka qof kale ma sugaya, adoo ku sugaa, aday kugu xirantay inaad dhahad maanta ku egtahay inaa waxaa sheegaya tilaabadaa raba inaad qaado, go'aankayga maanta inaad gaaro waay. adaa kugu xirantahay mid yiriisa oo kugu dari lahaa. qof adduunka kala jecel ma jiro qaabka u egtahay, lacagtaa leedahay, familkaada qaabka u ekaya, qofku kala jecel ma jiro. qofku wuxuu kala jecelaya bas markaa action ficil aad samaynaysid oo familkaada iyo dadkaada aad caawinaysid oo lagu okey wax la arkaayo, ficil la arkaayo markaa samaynaysid ee dadku kala jecelyihiin. ama way ku jeclaanayaan ama way ku nacayaan, laba wada waay. wax kale ma jiro haafaaf iyo qofkaa ma jiro. ama wuu ku nacaa ama wuu ku jeclaanaa. qofka ku jecelna wuu ku dhiirigelina wuu kula soconaa. qofka ku nacona waxaa waaye marsa hore u sheegay oo dadka kaaliito oo noloshaada ka masiir waayo, xumaana waa u qaadanin. marka insha allah dadkaas ka hilmaamo waxaa ku taxadirtaa bas maanta go'aankayga waxaa waaye wax walba oo wanaag aa jeclaa ilaa muddo inaa sameeyo maanta sameynaa, haddaa sameynaa. wiil cabdullaahi la dhahay waqooyiga noori kusoo bartay si fiican muskugu fiicnaa, laakiin hal wax uu ku fiicnaa wiilkaa. hal wax adduunka wax kastoo ku xumaado hal wax uu ku fiicnaa. wuxuu ku fiicnaa norwejiya ma aqoonin shaqo, nin shaqo muruq maal oo ah wallahi aad u jeclaa muruqa shaqada bas ku fakiro. xafiisoo tagaa shaqo raadsanaa norwejiyaanka ma yaqaano. wuxuu ii sheegay inuu sugi jira bas markii laho norwejiyaanka yaa ii naay waay. afka norwejiyaanka oo fiirsanaa yaa markii laho shaqo haystaa, shaqo maalmeed shaqadiisa xitaa inta week inta maalin inta bilata ma ogeyn. afka fiirsanaa yaa micnaheeda shaqo haystaa naay ala soo dhahaa. markaas shaqo ma helno dhaha waa mahadsantay waxaa maba yaqaano sida lagu dhaho. horoo ka jeesanaa waaye bye oo dhaha Soomaali ku dhaha. saac ma la rabaa hadaf markaa leedahay qofka naa iyaa ha u fiirin, hadafkaada fiirso saan waxa weji xiran camal tuneel inaa wax ku dhex arkaysa camal. hadafkayga waa ka xag dhegayso, waxaa jira wax badan oo ku mashquulinayo ama kaa hor istaagan hadafkaada waa ka xag u yaala. haddaa saa dhahayd wax walba kaa dhexgalaa. wax keliya kuula talina waxaa go'aanka 3,500 mar walba go'aan samaynaysa ku fakir. maanta go'aankayga ma adagay guriga fadhiyaa waxaa niyadeeda ku jirta waxaa waaye sabti waa maanta hawada dabeelaha socda duruuna ma ku ciyaari kari, banooni ma ciyaari kari, shalaya soo ciyaaray. wax walba fanaanada rabaa magac inaan kusoo qoro, waxaa laga yaabaa suuq in laga xiro. wax walba oo negative maskaxdeeda wax wanaaga ka sheegaysaa hadda negative haddaba socdo qaf maaha ma ku xirno. anaa igu xiran tahay negativekaas inaa dhaho maya waa inaa sameeyaa go'aana lee visionkayga aragtideeda waa xagga waa tunaala ku dhex socdaa. waxyaabahan kale oo social media oo mashquulina waa inaa iska xiraa, mobailka waa inaa dimiyaa. hadafkayga dhan kale waa insha allah waa inaa gaara. saa haddaa ku fikirto nolosha meel foga gaaray qof ku celinaa male. qof cadowgaada maaha, anaa cadowgaada isku ah, anaa cadowgayga isku ah. fikiraa limaanayna oo fiican waxaa samaynaynaa maskaxda waxay abuuraysaa maqaan qayb jir ka mid ah wuxuu abuuraa wax negative ah oo waxyaabahaas ficilkaas fiicana rabti inaad samaysid waxyaaba ka hor imaanaya waa samaynaynaa. mar kale ku celinaa adduunka qof kale jecel male qaabka u egtahay iyo lacagta haystii familkaada qaabku qof kale jecel male. waxay kala jecel yihiin bas marka gaartid guul aa gaartid labee dadku kala baxaan. waa dadku nac iyo dadku jecel. dadku ku jecel waa kuwa ku dhiirigeliyo oo jecel inay aday camal noqdaan. dadku nacab waa dadka kaaliita waa oo noloshaada ka masiirsan. ayana insha allah hal mid aa ku dhiirigelin kartaa. waa inaa ku celcelisaa ficilka, waa inaa ku celcelisaa ilaa maskaxdooda iska wadashaan. xal kale ma laho. yaa fiirso daawo yaa ilmaha waxaa ugu xume mar walba aabbo ma sameeya may anigana waxaa may saaxiibbaada soo may insha allah inaa iska bedelaa qof fiican ma noqonaysa ilaa familkaada dadkaada ka farxisid. marka waa ka shaqaynaya qof fiican noqdo marka dambe soo isku dayaa niyadeeda wax kale ma ku taagno. ka fiicnaa maanta meesha taagantahay, ka fiicnaa shala meesha taagnayd maanta ka fiicnaa. hadda fiican waa insha allah waa ku taagnaana ficila oo loo baahayo waa sameynaa insha allah. okay intaa ku ekeena 5 daqiiqana hadlaya hadalka meeshaan ku ekeena.